waxay leedahay qofka aan isagu wali xajiin cid kale intuu adduun u dhiibo waalidkii ma laga soo xaji karaa oo qofku lacag u dhiibaya wuxuu leeyahay waalidkay ka soo xaji isagana wali ma xajin jawaabtu waxa weeye haa qofkaasi taa wuu samayn karaa markaynu qaadano qowlkii culimada ahaa inuu qofku xajka dib dhigan karo waa sunna way fiicanta inuu u degdego markuu ku waajibo xajku laakiin wuu dib dhigan karaa sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam de sanadkii 9aad Abubakar buu diray isaguna sanadkii 10aad ayuu xajiyay marka hadii qofku haleeli waayo oo isagu kiisi uu dib dhigo ka waalidka horeysiiyo dib male way ansaxaysaa insha Allah su'aasha labaad maxamed baa soo qoray hargeysu ka soo qoray waxa uu leeyahay quraanka kariimka ama lagu akhriyo karaa guri cusub marka dhisato iyadoo la barakaysanayo kulkana jawaabta soo koobno ha mar hadii ay tahay in la doonayo barako iyo nicmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonka uu siiyay looga mahadnaqo waliba suuratul baqara rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadith sahih muslim ku sugan waxa uu ku yiri guriina xabaalaha ka dhigina guriga lagu akhriyo suuratul baqara shaydaanka ka carara aad bay muhiim inoogu tahay guriyaheena inuu shaydaanku ka firdhado ka fakado marka suuratul baqara in ku akhriyayna insha Allah markaad guri dhisan guri cusub dhisato amaba gurigeenaba sida caadiga ah suuratul baqara hadii aad taqaanana ku akhri hadii aad aqoonina cid ku akhrida ugu yeedho hadaad weydana cajaradaha ku shid Khalid Uthman isagana diri dhabu ka soo qoray su'aashiisu waxa weeye hadaan soo gaaro imaamka oo rukuucsan oo aan ku xidho ragcadaas ma ay tirsantaa jawaabtu waxa weeye haa sida culimadu intooda badan qabaan ragcadaas mar hadaad rukuucda ku soo gaadhood ku xidhatay way ku tirsantaa faatixadiina xaaladda waa laga dhaafay waajibka ahay inta kala ragcad walba waa faatixada la akhriyaa laakiin ragcadda ayada rukuucda soo gaadhay waad soo haleeshay jumcadii hadaad ragcadda ku soo gaadhay jumcadii waa soo haleeshay rukuucda hadaad ku soo haleeshayna ragcadda waad soo gaadhay laakiin waxaynu raacin lahayn si wanaagsan waa inaad ugu soo gaadhaa rukuucda وين isweydaanan mararka qaar kood baa dadku si u degdegayaan in Allah maca saabiriin inta ilaadan iyagoo soo ordaya ay xidhaan bay isweydaartaan imaamka salaadii way ku xirmaysaa laakiin ragcadu kuma tirsanaa marka waa inaad si fiican ugu soo gaadhaa markaad rukuucdii haleesho waa inaad ku soo gaadhaa isaguna kadib uu toosaa Abdulwali Kiiniyo ka soo qoray su'aashiisu waxa ahayd xaaskaygu weysada ma iga jabinaysa waa mas'ala khilaafiya culimada qayb kamid way ka jabinaysaa bay leeyihiin culimada qayb kamidina ma jabinaysa bay leeyihiin qolada sanad moodaa daliilka saxiixa inuu xoojinayo oranaya ma jabinayso laakiin mar haddii khilaafiyimi inaad iska weysaysataa way fiicanta khuruujan min alkhilaaf adigoo khilaafka ka baxaya su'aashiisa labaad waxa weeyaan xaasku qalaa lagu leeyahay urna way lahayd waqtiga Ramadaantu ay dhaaftay markaashin bay bixinaysaa mise way soo qalaynaysaa jawaabtu waxa weeyaan way soo qalaynaysaa mar haday qalahaba kari karayso raashinka waxa bixiya qofka kari waa inuu soo qalayo ama kii wahay mesela qofkii waxay xanuun aanu ka bogsanayn oo la nooriya ama qofkii gaboobeen waxba u soo kordhaynin dadka caynkaasi waxay bixinayaan raashin laakiin ruuxan dumari marka ay ilmihi roonaado caanaha cabo ayay soo qalayn doontaa sanadka aakhirkiisa insha Allah su'aasha shanaad waxa soo qoray Cabdilaahi Muqdisho ka soo qoray waxa uu leeyahay qof baa igu lahaa deyn mana garanayo maxaa yeelaa jawaabtu waxa weeye sida aad sheegtay haddayt oo aanad garanaynin sadaqad ugu bixinaysa laakiin horta marka hore isku day inaad baadi doonto oo aad isagii soo hesho marka kol hadaad weyday sadaqa waad ugu bixin kartaa wallahu a'lam